munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay konton arday oo ka qalin jabiyay iskuulka Herer International College ayaa xalay toole lagu qabtay hotel Dero ee magaalada Burco. munaasabadani oo ay mid sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco, macallimiin, waalidiin, maamulaha dugsiga Sheekh Ibraahim, arday iyo marti sharaf kale aad u tiro badan. waxaana ugu horeyn munaasabadani ka hadlay maamulaha iskuulka Herer International College محمد سليمان علي oo ka waramay maraaxilkii kala gedisanaa uu soo maray iskuulkani, isagoo hambaliyay iyo bogaadin u diray ardayda maanta ka qalin jabinaysa iskuulkana kuna tilmaamay arday akhlaaq suuban ahayd muddadii ay iskuulkani wax ka baranayeen. dugsigan Herer waxaa la aasaasay waa dugsi private ah, waxaanu aasaasnay 2007 bishii July bishii 7 2007 waqtigaanu aasaasnay waxaanu ku jirnay dugsiga sare ka sii baxaynay arday waan ahay dugsiga sare ku jirta markaas oo ka sii dhamaysanaysa ardayda maanta ay noo qalin jabinaysa waxay noqonayaan iyagu konton arday bil ka hor waxay noo qalin jabiyay iyadana 60 arday marka intaas oo qalin jabiyaan bisha October xaflad kale ayaa la qaban doonaa ardayda sanadka oo kaliya ka bixi doonta waxay noqon doontaa sanadku 187 arday. waxaana iyaguna munaasabadani ka hadlay xildhibaan Cabdilaki oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco, gudoomiye ku-xigeenka ururka sportiska ee Waaya Arag Maxamed Cawade, maamulaha dugsiga Sheekh Ibraahim, Cabdiraxmaan Axmed Xirsi Faarax oo ku hadlay afka waalidiinta oo si isku mid ah ugu hambaliyay ardayda maanta ka qalin jabinaysa iskuulkani, kuna la dardaarmay inay halkaas waxbarashada ka sii wadaan oo aanay kaga hadhin oo sii badsadaan waxbarashada, iyagoo tilmaamay inay aqoontu tahay taqura ee dalalka caalamka isku dhaafeen. qiimaha iyo dhaqaalaha qalin jabinta waan dareenkan qiimaha aad ku qalin jabinaysaan annaguna waan idinla qabnaa, waan idinla faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa. marka waxaan leenahay hanii'an lakum watahnii'atan lakum, waanu idinla qaybsanaynaa oo idinla wadaagaynaa farxaddiina, waana idinku taxniyadaynaynaa oo idinku hambaliyaynaynaa horumarka aad ka samayseen waxbarashada. waxaanu siinay waa furahuna kolley waxaan maleynayaa haddii sida uu ama u tarayo loo adeegsado wax badan buu soo saaraa, haddiise laakiin halkaa uu marka gacanta lagu dhigo loo dhigo dee wax aan u samaynaya ma jirto. maalin walba taxriibayay maalin walba yacniga bad xuraysay oo maanta la leeyahay ubadkiinii baa yacniga halkan ka qalin jabinaya waa arrin noo farxada. waxaa ugu dambeyntii munaasabadaasi soo afmeeray gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac Warsame oo ammaan ballaaran dusha ka hubiyey macallimiinta iyo maamulka iskuulkani uu ku tilmaamay dad dhalinyaro ah oo haatan soo saara jiil arday oo tayeysan, waxaana ardaydan qalin jabinaysa uu kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan waxbarashada. marka saddexda xirfadood ee ka socda dugsiga saddexduba waa saddex muhiim ah oo loo baahan yahay haddii in laga faa'iidaysto wixii ka faa'iidaystay sida qoladan qalin jabinaysa ama kuwii hore la tibaaxayba in ay hore u sii socdaan oo ay sii wataan oo ay dalka iyo dadka iyo naftoodaba uga faa'iideeyaan ayaa loo baahan yahay. waxaana ugu dambeyntii shahaadooyin la guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay iskuulkani oo baratay culumta xisaabta, kombiyuutarka, management office. caddani oo noqonaysa dafcaddii 9aad ee ka qalin jabisay iskuulkani Herer International College. waa Khadar Cabdirasaaq Suleybaan, shabakada caalamiga ee Hadwanaag News, magaalada Burco.